sabab la xiriirta xidiga Alexis Sanchez oo ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United heshiis ula gaari laadahay xidigaha David De Gea iyo Anthony Martial. Manchester United ayaa waxa ay wajahaysaa dhibaato xooggan oo ku aadan sidii qandaraas cusub ula gaari lahayd ciyaartoy muhiim ah sababtoo ah mushaaraadka faraha badan ay u gacan geliyeen Sanchez. dadaalo heshiis cusub looga saxiixi lahaa Anthony Martial iyo David De Gea ayaa waxa ku yimid ishor istaag kadib markii ay dalbadeen wakiiladooda in la siiyo lacagaha uu qaato Alexis Sanchez mid la mid ah ciyaartoydooda, taasi oo hakad gelisay wadaxaajoodyada. ninka reer Jili ayaa waxa loo gacan geliyay 400,000 oo pound toddobaadkii ka gadaal markii uu go'aansaday in uu dhabarka u jeediyo kooxda ay xifaaltamaan ee Manchester City si uu ugu soo biiro kooxda maryaha gadgudan ku ciyaarta. sidoo kale waxa akoonkiisa ugu dhacda 75,000 oo pound markasta oo uu kooxda u safto, waxaana iminka ciyaartoyda ay kooxda yihiin ay u isticmaalayaan tiro lacageedkaasi in ay ku helaan heshiisyo wanaagsan. De Gea oo 27 jir ah ayaa aaminsan qandaraas gaaraya 300,000 oo pound inuusan ahayn mid aan macquul gal ahayn, ayadoo ay jirto in xidigani dunida inteeda badani ay u tixgeliso in uu yahay goolahayaha caalamka ugu wanaagsan. ninkan goosha u qabta dalka Spain ayaa mushaaraadka uu iminka qaato waxa uu gaarayaa 175,000 oo pound toddobaadkii, ayadoona la filayay in uu heshiis cusub saxiixi doono xagaagii aynu iminka ka soo gudubnay. laakiin labada dhinac ayaan weli waxba isku afgaranin. si la mid ah De Gea, Martial ayaa isna heshiiskiisa waxa uu dhacayaa xagaaga soo aadan, isagoona ka biyo diiday qandaraaskii ugu dambeeyay ee ay kooxdu u soo bandhigtay. hase ahaatee kooxda Manchester United ayaa u haysata fursad 1 sano oo dheeri ah ay ugu sii hayn karto labadan xidig garoonka Old Trafford. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.